habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka waxaan ahay cabdiraxmaan bidhaan wararkana waxaa ugu waaweyn iyadoo caalamka oo dhan dadka qaaday fayruska corona ay kor u dhaafeen 1 milyan ayaa maraykanka maalin qura 1,000 qof ku dhimatay waa tiradii ugu badneed ilaa hadda ee maalin dhimata warbixin dheeraad ayaanu idinka haynaa wararkii ugu dambeeyay safmarka coronavirus wararkiisa kalena waxaa ka mid ah afdaboolku macaawin karaa ka hortagga caabuqa waxaanu idin haynaa cilmi baadhis cusub oo sheegaysa in hindhisadu ay fayruska 8 mitir gaadhsiin karayso caawa iyo tiknoolajiyada iyo klegna waxaanu idin haynaa roobatyadii oo waajibaadkooda gudanaya iyaga oo bandooda fulinaya kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London caawiya caalamka waxaa imika la xaqiijiyay in dadka qaaday fayruska corona caalamka oo dhan ay gaadhayaan 1 milyan iyadoo 54,000 oo qofna ay u dhimatay tan iyo markii uu bilaabmay haddii aynu eegno wararka ugu dambeeyay caabuqan ilaa iyo hadda maraykanka ayaa tirada ugu badan ee caalamka dadka uu haleelay fayrusku ay ku nool yihiin iyadoo ay gaadhayaan 1/4 milyan waxaana ilaa iyo hadda la diiwaan geliyey 6,000 oo dhimasho dalka maraykanka barisaabka gobolka New York ayaa ku dhawaaqay in New York ay xaalad degdeg ah ay haysato imika iyadoo ay New York weli tahay baa la leeyahay xudunta fayruskan ee maraykanka iyo halka ugu dhimashada badan mas'uuliyiinta ayaa dadka ku amray inay wajiga dabooshaan oo ay maaskaro gashadaan marka ay dibadda u baxayaan We're advising New Yorkers. waxaan kula talinayaa dadka New York inay xirtaan maaskaro marka ay dibadda u baxayaan ama ay dad u dhowaanayaan. It could be a scarf. xataa khamaarka qoorta lagu xirto ha noqotee ama masar aad adiga guriga ku samaysatay khasab maaha inaad xirato maaskarada dhaqaatiirta balse madaxweyne Trump ayaa isagu sheegay inaanu doonayn in uu dadkiisoo dhan ku qasbo xirashada maskarada ama maska dhanka qaaradda Yurub haddaynu usoo dhaadhacno maanta Spain ayaa iyadu ka kormartay Talyaaniga tirada dadka laga helay fayruska corona marka la eego taasi oo micnaheedu yahay inay iyadu imka tahay dalka labaad ee la daala dhacaya xanuunkan Maraykanka kadib dadka Spain xanuunkan qaba ayaa ilaa hadda gaadhaya 118,000 oo qof 932 qof ayaa dhintay 24 saacadood ugu dambeeyay dalka Spain taasi oo ka yar dhimashadii shalay waxaa daba la isweydiinayaa miyay tahay haddaba in dadku ay afduubka xidhaan ama maskarada si loo xakameeyo faafidda fayruska corona su-aashan ayaa haddaba waxa qiimeynaya la taliyayaasha hay-adda caafimaadka adduunka WHO kadib daraasado cusub oo sheegay in fayruskani uu gaari karo meelo ka fog sidii hore loo aaminsanaa oo ay wadamo ay ka mid yihiin maraykanka ayaa haddaba doodani ka socotaa oo la doonaya bal in la eego in dadku ay meelaha fagaaraha oo dhan ay tahay inay u xidhaan Junayd Faarax ayaa inoo haya ilaa iyo intee leeg ayay hindhisadu gaari kartaa miyayse xirashada maskaradu yarayn kartaa faafka fayraska daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in ay hindhisadu gaari karto meel ka fog sidii hore loo haystay haddaba la taliyayaasha hay-adda caafimaadka adduunka ayaa eegaya caddaymahan cusub dalka maraykankana kaamirooyin si qaas ah loo sameeyey ayaa qabtay hindhisada taas oo muujinaysa in faniinka qaar ay meel dhow gaareen laakiin in badan ayaa gaaray meel ka fog saynisyahanada daraasadan sameeyey ayaa ku talinaya in xirashada maskaradu ay hoos u dhigi karto qaadista fayraska maskarada ayaa si lama filaan ah u noqotay muuqaal caam ku ah adduunka oo dhan laga bilaabo suuqyada waaweyn ee California ilaa iyo saraakiisha booliiska ee gaafureegaya wadooyinka Faransiiska ilaa iyo hadda talooyinku waxa ay ahaayeen in dadka caafimaadka qaba aysanba u baahnayn inay xirtaan maskarada ka sokow kuwa xanaanaya dadka waayeelka ah ee fayraska qaba laakiin taladaas ayaa isbedeli doonto waxayba noqon kartaa in xirashada maskarada ay ka wanaagsan tahay arrinta in dadku kala fogaado laakiin waa haddii si sax ah loo xirto iyo in dadka aysan fayraska isqaadsiin marka ay iska siibayaan maskarada markaana aysan taaban meel fayrasku gaaray magaalooyin badan oo Jarmalka ka mid ah ayaa doonaya in xirashada maskaradu noqoto sharci marka aad joogto goob fagaare ah dadka badankiisa ayaa qaba in ay arrintan caqligal tahay khubradana waxay ku dareen in xirashada maskarada kaligeed aysan keeni karin in aad fayraska qaadin waddanka Austriana
suuqyada waaweyn ayaa ku adkaystay in qof walba xirto maaskarada, laakiin khubarada caafimaadka waxay leeyihiin waa in maaskarada si sax ah loo xirto. Tan ugu muhiimsanna ay tahay nadaafadda iyo isku soo wada duubay in gacmaha si wanaagsan loo dhaqdo. warshadaha Roma ee dalka Talyaaniga ayaa isku bedelay kuwa sameeya maaskarada xilli baahi weyn loo qabo, laakiin hal walaac oo xirashada maaskarada keeni karto dunida oo dhan ayaa waxa ay tahay in ay adkaato in shaqaalaha caafimaadka ay helaan in ku filan. xagga qaaradda Afrika haddaynu u soo dhaadhacno waxaynu arkaynaa iyadana in dal kasta oo Afrika ah laga helay fayruska corona marka laga reebo South Sudan, Lesotho, Sao Tome iyo Principe iyo waliba Comoros. ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay 7,000 oo kiis oo coronavirus marka la eego qaaradda Afrika guud ahaan iyo 300 oo dhimasho ah 11 dal oo Afrikaan ayaa laga soo xaqiijiyay. Malawi waa dalkii ugu dambeeyay oo 3 qof ayaa laga helay maanta. magaalada Nairobi caasimadda Kenya wasaaradda caafimaadka ayaa qabatay shir jireed maanta oo ku aadan viruska corona. wariyaha BBC da Cabdinaasir Saxan Saxo oo la socday shirkaasi jireed ayaa goor dhawaad iga warramay xaaladihii ugu dambeeyay Kenya. bidhaanow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxyaabihii ugu dambeeyay ee bushiga coronavirus kusoo kordhay waxaa ka mid in dowladda Kenya ay shaacisay in 12 qof oo cusub ay cudurka qaadeen oo la seexiyay goobihii loogu talagalay. waxaana xusid mudan in qof Soomaali ah ama Soomaaliya ka yimid oo haysta baasaboorka Soomaaliga ah sida aan u fahamnay ama muwaadin Soomaaliyeed ah uu ka mid yahay dadkaasi loo seexiyay cudurka coronavirus. sidoo kale dowladda Kenya waxay baadigoobaysaa 600 oo qof oo dadkaasi 12 ah ama dad hore looga helay ay la macaamileen kuwaasi oo loo maleynay inay cudurka qaadeen waana ku daba joogtaa dowladda Kenya. sidoo kale dowladda Kenya waxay shaacisay in 60 milyan oo cafuufka ama waxa lagu magacaabo gafuur xidhka ama maskaratada la sameyn doono iyada oo dowladda ay abaabushay warshadaha dharka sameeya ee gudaha dalka Kenya si dadka looga xaqabtiro qalabka. sidoo kale qorshayaasha dowladda Kenya ay shaacisay waxa ka mid ah amaba la hadalhayo ee qorshaha ku jira in iskuulaadka aan aadka loo tagin tuulooyinka ama deegaanada miyi-xigeenka laga dhigi doono goobo karantiil haddii cudurka uu intan ka sii baaho. walina waxyaabaha soo taraya ee cudurka corona ku saabsan ayay arrimahaas ka mid yihiin iyo kuwa kale oo tiro badan. sida aynu arkayno coronavirus waxa uu ku faafayaa daafaha adduunka oo dhan. dalweynaha Australia caalamka ayuu la qabaa hawlahaasi. wari madax bannaan Ibrahim Cumar Baafo oo ku sugan magaalada Melbourne ayaan goor dhaweed weydiiyey xaaladaha bal iyaduna Australia ay ku jirto. bidhaanow tan iyo markii caabuqan uu ka dilaacay adduunyada dabcan Australia waa qaaradda ugu fog ama halka adduunka uu ka soo bilowdo marka laga reebo New Zealand. waxaan la soconnaa in dalkan ama qaaradan Australia guud ahaan tirada coronaviruska dadka uu haleelay amba oo soo ritay ay iminka kor u dhaafayaan ilaa iyo 5,000 oo qof. dhimashadu ma badna waa in ka yar 30 qof. dowladduna si aad ah ayay u maareysay caabuqan tan iyo markii uu dilaacay dabayaaqadii sanadii lasoo dhaafay. waan gartay Ibrahim ma lagu soo rogay bando iyo xayiraado waaweyn dalka Australia iyo magaalada joogtay waliba Melbourne. guud ahaan dalka waa ay jirtaa amaro aad u badan oo lagu soo rogay oo isdaba joog ah. waxaa ka mid ah arrintii lagu joojiyey iskuullada dalka iyo weliba goobaha aan muhiimka ahayn in albaabada laisugu laabay sida maqaaxidaha, kalaabiyada, baararka, meelaha lagu caweeyo iyo weliba meelaha dadku ay isugu yimaadaan oo ay ka mid tahay aroosyada iyo weliba aaska ama duugta wax loo yaqaan. sidoo kale waxa aan dunyada inteeda kale aanu kala mid nahay in masaajidada halkan jimcihii 3aad oo maanta ah iyaguna aanan salaad jimca ama salaadihii caadigaba aana lagu dukan oo albaabada la isugu laabay. waan gartay xagga Soomaalida jaaliyada Soomaaliyeed ee ballaaran Australia degan iyaga ilaa hadda saameyn intee lag cudurkan ku yeeshay. dabcan saameynta uu ku yeeshay jaaliyadaha kale ee wadankan ama guud ahaan caalamka ay Soomaalidu ay qayb ka tahay. laakiin sida loo socoto Soomaalidu waa dad ganacsiyadooda isku wada mid ah. waxaan u badan dalkan Australia Soomaalida ku nool shaqooyinka ugu badan halkan ay ku hayaan waxaa ka mid ah wadista gawaarida tagaasida loo yaqaan
oo runtii aad u saameysay wadayaal ama darawalo aad u fara badan oo Soomaaliya oo maanta guryahooda fadhiyaan oo aan taxi wadi karin waayo meelihii ugu muhiimsanaa ee dadka laga soo qaaday waa tii la xiray oo madaarka ama airportka ugu weyn yahay saameyn weyn buu ku yeeshay dhalinyarada Soomaalida guud ahaan bal markan aynu eegno warar kale caawa hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa boggeeda Twitterka fariin ay soo dhigtay waxay ku eedeysay wariye Haaruun Macruuf oo ka howlgalay idaacadda VOA ee Washington inuu ku kacay sida ay hay'addu hadalka u dhigtay oo ku lug lahaanshaha xiriiro khatar ku ah amniga qaranka NISA ayaa fariinteedan ku sheegtay in ay wariyaha ka qaadayso tallaabo sharciga waafaqsan ayna uga digayso hay'adaha dalku inay ka digtoonaadaan xiriirkiisa hay-adda NISA iyo wasaaradda amniga gudaha oo aanu xiriir la sameynay midkoodna jawaab nagamaysiin arrintaasi bangiga adduunka ayaa ansixiyay lacag la siinayo Hindiya oo 1 bilyan si dalkaasi ula tacaalo safmarka coronavirus lacagtan ayaa India ku iibsan doonta qalabka viruska lagu baaro kuwa neefsashada iyo agabka fayadhowrka ee la isku ilaaliyo deeqdan waxay ka mid tahay mid 25 dal la siin doono Afghanistan iyo Pakistan ayaa iyaguna helaya lacag dawladda Peru ayaa ku dhawaaqday inay soo rogtay amaro xadidaya dadku marka guryaha ka baxayaan laakiin waxa loo eegi doonaa lab iyo dhadig ka yihiin si looga hortago coronavirus isniinta arbacada iyo jimcaha raggu ma bixi karayaan haweenka ayaa u leh maalmaha kalena waa ragga ayaa weedaaranaya laakiin axadda cidina ma bixi karto cunto iyo dawo ayuunbaa loo bixi karaa marka la baxayana mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas aad keli doonto wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka weli waxa inoo soo socda soo dhawaada daawadayaal weli waxa daawanaysaan caawiyo caalamka anoo Cabdiraxmaan Badhaana idin la socodsiinaya wararkana waxa ugu waaweynaa iyadoo caalamka oo dhan 1 milyan ay kor u dhaaftay dadka qaaday viruska corona ayaa dalka Mareykanka waxa maanta ku dhintay 1,000 qof waxa kale oo caawa ka hadalay aftaboolku macaawin karaan ka hortagga caabuqa dalka Japan ayaa imika u muuqda inuu isaguna ku soo biirayo dadaalka caalamiga ah ee la dagaalanka faafitaanka viruska corona wadankan waxa lagu arkay hadda 3,000 oo kiis 750 qofna way ku dhinteen ma jirin hadaba Japan xayiraad buuxda oo saaran dalkuna si baahan muu sameeyay baaritaano laakiin toddobaadkii hore kiisaska ayaa ku soo batay magaalada caasimadda ee Tokyo waxaana ay bilaabeen kiisaskaasi in si degdeg ah wax looga qabto Mawlid Xaaji Cabdi ayaa ka warramaya halkani waa bartamaha Tokyo maalmo ka hor bulshadu waa isdhex socotay xayiraadana ma jirin shalayna sidan ayay wadooyinka ahaayeen halkan isbedel ayaa ka bilowday wuxuu beeraha magaalada ka bilowday dhamaadkii toddobaadka So this behind me is the gate to Yoyogi Park in central Tokyo. halkan iga dambaysa waa albaabka beerta Yoyogi ee bartamaha Tokyo caadiyan galabta sabtida xilligan oo kale sanadkan waxay ahaan lahayd in dadka oo sita sakura ama xaflada ku qabsanaya geedkan cherry blossom waad arki kartaa albaabku wuu xiran yahay waxa ka muuqda calaamad leh sababtu waa fayraska corona tani waxay dhacday 24 saac ka hor In the last 24 hours or so. muuqaaladan oo kale sida beerta Yoyogi
ayaa kalifay in dowladdu tallaabo qaado. La taliyaha dhanka caafimaadka ee ra'iisul wasaaraha ayaa leh haddii aan la helin isbeddel hab dhaqan, Turkiya waxay qarka u saaran tahay inuu dilaaco cudurku. Unless Japanese people or society as a whole behave. haddii aanay dadka Japan iyo dhammaanba bulshadu isi saarin mas'uuliyad oo aanay ka fogaan goobaha iyo munaasabadaha, taasi khatar caabuq oo weyn ayay keeni kartaa, waxaana ku dambayn karnaa xaalad aad u ba'an. End up with the, very serious situation. Laakiin Tokyo shaqooyinka ayaa socda, tareenadu way buuxaan, dukaamada iyo maqaamiduhuna way furan yihiin. waxaan filaa inay tahay dhibaatada dadka kale. way igu adag tahay, mana malaynayo inuu aniga igu dhici karo. bannaanka ayaan u baxayaa, waan qada tegayaa, markaas kulanna waan leeyahay, ilaa caawa waan maqnaanaya. Japan ma aanay samayn baaritaan ballaaran, dad ka yar 35,000 ayaa la tijaabiyey ilaa iyo hadda. waxa aan u malaynayaa in Japan ay ku jirto marxaladda faafitaanka. fayrasku waa uu faafi doonaa iyadoo ay suurtagal tahay in kiisasku ay kordhaan. dad badan oo Japan ku sugan ayaa leh dalku waa gaar marka la eego dhaqanka nadaafadda iyo iska ilaalinta fayraska. sida ilmahan 2 sano jirrada ah ee xanaanada ku jira, ciyaarta kadib gacmaha ayay galaaska ku dhaqanayaan. dabeecadda caynkaasi ayaa ka caawisay in fayrasku yar yahay, laakiin Japan gabaad uma noqon doonto. bal imkana aynu Afrika dib ugu noqonay. dalka Koonfur Afrika ayaa dalka tirada ugu badan ee dadka qaba COVID-19 laga helay qaaradda. kiisasku imka Koonfur Afrika waxa taagay 1462. dalkan ayaa dhawaan bilaabay hadaba barnaamij ballaaran oo ay dad fara badan ka qayb galeen xanuunka lagu baaray si loo xakameeyo fayraska. kumanaan shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika ayaa ka qayb galayo dadka albaabada ku garaacaya si ay u baaraan COVID-19 waliba xaafadaha isku raranka sida Alexandra. Maxamed Xaraare ayaa inoo haya. tiradu waxa ay kor u dhaaftay 1300 oo kays. Koonfur Afrika waxa ay la dagaalamaysaa 5ka fayraska corona ee ugu ballaaran qaaradda. maalintii 21 maalmood oo bandow la soo rogay, waxa goobaha ay degan yihiin dadka nugul sida Alexandra ka bilowday tijaabo caafimaad. deegaano kala duwan ayaa la filayaa in tijaabadu ku baahdo, iyadoo 10,000 oo shaqaale caafimaad loo carbiyay inay garaacaan albaab kasta si dadka looga baaro fayraska corona. Alexandra 9 qof ayaa karantiin la geliyay kadib markii deegaanka kaysas laga xaqiijiyay. waxaanu ka war helay in halkan dad joogaan, waana sababta aanu maanta aagan culayska u saareen. dadka saboolka ah iyo kuwa ku nool deegaanada isku raranka ah ayaa cabsi badan ka qaba xanuunka. qaar badan oo ka mid ahna waxa ay ka jawaabayaan baaqa dawladda ee ah in la digtoonaado. waan cabsanayaa sababtoo ah garan maayo natiijada soo bixi doonta. xanuunkani waa halis. inta aadan helin natiijada, shaki ayaa kugu jira, sababtoo ah ma ogid sida uu xaal noqon doono. deegaanada bulshadu ku badan tahay isla markaana ay kooban yihiin adeegyada caafimaadka sida Alexandra, waxa adkaan doonta sida loo xakameyn doono fayraska. kala fogaanshaha bulshada halkani maaha mid sahlan, maadaama aqaladu ay sanka isku hayaan. weli Afrikaynu ku jirnaa. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa iyadu la dagaalamaysa cudurro badan oo kuwa faafa ah oo isku waqti jira. cudurkii Ebola ee dilaaga ah ayaa halkaas ka jira. jadeecadii ugu xumeed adduunka ayaa ka jirta. haddaba waa maxay casharka iyo way aragnimada ay DRC ka baratay cudurradaasi faafa si dalkeeda ay si saani ah ula dagaalamaan COVID-19? aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa soo jeedinaya. muuqaalada cudurrada faafa, kala fogaanshaha bulshada iyo karantiil iyo gafuur xirir waa wax cusub oo walwal badan oo ay la kulmeen inta badan dalalku, laakiin DRC sidaasi ma aha. in ka badan 40 sano ayay dagaal kula jireen Ebola, cudurka dilaaga ee la karantiilo. hal nin ayaa waxa uu dabdhaxaad u ahaa la dagaalanka cudur kasta oo faafa. haatan waxa uu ka qayb qaadanayaa COVID-19. waxaan doonayaa inaan idiin sheego in dagaalkan uu ku salaysan yahay caddaymo saynis iyo khibrad aan ka helnay sannado badan. guushu waxa ay ku xiran tahay midhaha ka dhashay iskaashiga dhammaan dadka reer Konga. suurtagal ma aha in lagu guulaysto la dagaalanka COVID-19 haddii aan bulshada la abaabulin. kaasi waa cashar laga bartay la dagaalanka Ebola ee haatan ka dilaacay wixii ugu xumaa ee DRC ay weligeed soo aragto. quraafaad iyo macluumaad beena ayaa dhaliyay kalsooni darro u dhaxaysa shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka. in laga guulaysto ayaa furo u ahayd baabi'inta cudurka.
in la raadiyo kulamada dadka oo la soo helo kuwa baxsaday iyo ciddii laga yaabo in ay cudurkan qaadsiiyeen dad kale waa sida lagu xakamayn karo faafitaanka iyadoo oo gacmaha la dhaqayo lana kala fogaanayo haddii aad u safartid magaalada Goma sidan ayaa lagugu salaamayaa salaanta gacantu waa ay dhamaatay waxa lagu bedelay waxa ay ugu yeereen Ebola laakiin iyadoo ay jirto isku ekaanshaha cudurka haddana isku mid ma aha COVID-19 waa uu dhimasho yar yahay laakiin aad ayuu u faafaa saf markan dibadda ayuu nagaga yimi markaa ma garanayno si aan ula macaamilo cudurrada halkan ka dilaaca ee waddankayaga ka dilaaca dhaqan ahaan baanu garanaynay laakiin cudurkan waa cudur dhinacyo badan iyo dhaqanno badan ka yimid markaa way adag tahay sida loola macaamilaa COVID-19 durbaba waxa uu ku faafay 4 gobol oo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ah dalkan ayaa masiibadan wajahaya isaga oo nidaamkiisa caafimaad uu tabar daran yahay nasiib wanaag waxa ay leeyihiin way aragnimo ay ka heleen dhibaatooyinkii hore caawiyo ciyaaraha hadaynu eegno wararka ku saabsan dib u bilowga horyaalka Ingiriiska Premier League ayaa la filayaa in haddana dib loo dhigo hore waxa qorshuhu ahaa in 3 Abriil uu dib u bilaabo imika waxa la eegayaa bal in May uu bilaabmi karayo Faransiiska iyo Spain iyagu gabi ahaanba horyaaladoodu way joojiyeen xiriirka kubadda cagta ee Yurub iyo UEFA ayaa uga digay horyaalada Yurub inay hore u gabagabeeyaan waqti ciyaareedka sanadkan waxaanay sheegeen inay waayi doonaan hadday sameeyaan saasi Champions League iyo Europa League meelaha ku leeyihiin waxay sheegeen in imka inay wadaan qorshe ay tahay July iyo August lagu kala baxo tartamada tani ayaa imanaysa iyadoo Belgium ku dhawaaqeen in xil ciyaareedka 2019 iyo 20 la gabagabeeyay mas'uuliyiinta cricketka ee New Zealand ayaa sheegaya in ciyaarihii ay kaga qayb gali lahaayeen Holland Ireland iyo Scotland bisha June ee soo socotaana suurtagal ahayd waxayna ahayd in ciyaaro istaba jooga wadamadaasi ku galaan imika saf marka ayaa jira caawadii tiknoolajiyada click adduunka oo dhan waxa la adkeeyay in guryaha lagu jiro waxaana ka qayb galaya imika roobotyo casri ah oo iyaguna gaarka ka qayb qaadanaya Cismaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya gawaari robot ah ayaa wadooyinka Tunisia lagu arkay si loo xoojiyo xirnaanshaha dalka ayay qayb ka yihiin gawaaridan meel fog ayaa laga hagayaa waxayna u soo dhawaanayaan dadka iyaga oo weydiinaya aqoonsi iyo sababta ay dibadda ugu soo baxeen arrintan waxay ka dambeysay markii lagu dhawaaqay in qof kasta uu u hoggaansamo habka karantiilka ee dalka lagu soo rogay Twitter ayaa sheegay in ay ka bixiyeen bartooda qoraallo marin habaabin ah oo ku saabsan fayraska corona oo 1,100 ah kadib markii ay dib u eegis ku sameeyeen qaynuunadooda safmarkan tani ayaa macnaheedu waxa uu yahay in dadka adeegsada ay ka saaraan waxyaabaha kordhin kara faafitaanka fayraska waxaana ka mid ah waxyaabahaasi sida in laga tago talada qubarada iyo in lagu dhiirigeliyo in dadku qaataan daawo been ah marka dambe oo aad banaanka u soo baxdo si aad u orado qalabkan anqawga lagu xiro waxay ka caawin karaan in aad kordhiso tallaabadaada injineerada jaamacadda Stanford ayaa soo saaray aalad lagu xiri karo lugaha dadka waxayna fududeynaysaa orodka aaladan waxa ku rakiban xarig lugta gadaasheeda ku xiran waxa uu fidsan yahay anqawga ilaa iyo suulasha dhulka ayuuna kor uga qaadayaa ugu dambeyntiina haddii aad ku caajistay wicitaanka lays arko ee shaqada ama qoyska isku day in aad muuqaallo kala aragtid beer xoolaha lagu dhaqdo oo ku taala California ayaa xoolaha ku jira internetka soo gelisay waxayna u badan yihiin ari iyo kuwa kale oo ay lo ka mid tahay oo beerta daaqaya ayaana ku jira sawirada xusuusna wararkii ugu dambeeyay BBC Soomaali waxaad mar walba ka heli kartaa bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa caawiya caalamka anoo Cabdiraxmaan Bidhaana iyo tiimka London baa waan idin salaaminaa waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo